wafdi ballaaran oo hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde ay xubno ka ahaayeen wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta wasiirka gaashaandhigga wasiirka cadaaladda wasiirka dawladda duulista iyo hawada ayaa kulamo gooni-goona ilaa xalay la yeelanayay qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Togdheer iyagoo xalay kulan afur iyo casho isugu jiray la yeeshay salaadiinta iyo waxgaradka gobolka Togdheer kulankaasi oo ka dhacay madaxtooyada gobolka Togdheer halka kulan saacado badan qaatay ay saaka kula yeesheen xarunta maamulka gobolka Cuqaasha iyo golaha deegaanka degmada Burco kulankaas oo mucdiisu ahayd sidii la isaga kaashan lahaa xoojinta nabadgelyada isla markaasna nabadgelyo lagu xaliyo dhacdooyinkii xuduudaha ee dadka lagu laayay barasaabka Togdheer oo kulanka soo furay ayaa iftiimiyay muhiimadda nabadgelyada isagoo si waafiye u sharaxay socdaalka wafdigan uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ee ka kooban 4 wasiir 5 wasiir ay ka mid yihiin wasiir Cadare wasiir Cadaani وسير عظمي وسير ورا العبده وسير أحمد نور أي نلتشوا بس 11 أي واحد السعوديين ويكون عندنا يعني أرنت النبتقلية دي قبل تقدر إن كلاشران عقاشة إن كلاشران ديانكا إن كلاشران كدية دريرة وحأكتين إنه كسبح دي قلب نموي إلى ساعة كسجالك إلى أبط النار وحيقول تاجنا وسير ذا سيبو صومن إن الله hadlaan bulshada kala duwan ee gobolka ku nool waxay noogu dhacay si wanaagsan oo qurux badan waxa laga wada hadlayo in waxay baysku ahaa oo mucdu ay ahayd arinta nabadgelyada waa ogeedina bariyahan xoogaa xasaasiyada ka jirtay xuduudaha xoogaa kala ka jiray xataa gobolka laftiisa degmada arintaas la emphasize gareeyay laga hadlayay arintii si wanaagsan oo qurux badan baa dhinac walba ay sula beerxaadeen u dhameeyeen wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka warfaafinta ayaa warbaahinta u sheegay nuxurka waxyaabihii ka soo baxay kulanadaasi ilaa xalay soo taxnaa sawirkii ka dhacay xuduudda muxuu ahaay dhawaan ama gudaha kilka dowlad deegaanka Soomaalida ha ahaato ama dhibaatadii dadkii halkan ee Soomaaliland ee u dooray muxuu ahaay dhinaca dowlad deegaanka soo dowladda Itoobiya ee dhibaatadu soo gaadhay hadday yihiin dadka reer guuraaga ah iyo hadday yihiin dadka daba tagayba muxuu ahaay dadkii ehelka ah oo caana doontay arinta runtii horena waa looga hadashay dowladda Itoobiya way ka hadashay dowladda Kilkuna way ka hadashay dowladda Soomaaliland way ka hadashay cid waliba in laga xubiyo arintaas inay dhacdo waa ogtihiin oo shacabka waa loo soo gudbiyay halkan waxaan u nimid arinta falka dhacay inaan fal ka sii foolxun aan lagu jawaabin in arinta talo iyo wada hadal la isugu yimaado in nabadgelyadu waa qaali ah dowladda dariska in Itoobiya inaguna waxaan nahay laba dalo saaxiiba in wixii dhacay aynu ku wada hadallo oo laga wada hadlo dadka dhibaataysanna codkooda la dhageysto ayaanu ku wada hadalay waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa odayaasha iyo cuqaasha iyo salaadiinta iyo dadweynaha ee soo gaarsiiyay nabadda halkan ee ku faraadeeyay iminkana diyaar waa inay gartooda sheegtaan iyagoo wax dhibaato ah samaynin waa arin aad iyo aad u qiimo badan ilaa xalayto madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dabaaq loo diray maxaa raacay gobolka Sool iyo wasiirku badii markay arintaas u dhacday oo hore de laba reer Soomaaliland kamid ah oo walaal ah ayaa deesaa ka waraysan mashaqo dhexka maxaa ku dhacay dhibaato kala dhex dhashay salaadiin iyo guurti iyo waxgarad fara badan baa loo diray iyo wasiirada markii hore arintaas xabad joojin baa la isla qaatay oo dhamaatay waxaana u egtahay xabad joojintaas inay xalay jabtay oo maanta khasaare xooggan ilaa xalay ilaa saaka u yimi waxaan mar labaad aan ku celinaynaa Ramadaan baa lagu jiraa waa bil soon oo Ramadaana in dadka walaalaha ilaahayna laga boqo dagaalna wiil kuma dhashay wiil uma qofta waxaan leeyahay abtiyaaladay ee halka ku dagaalamaya bil soon baa lagu jiraa
inay ta ilaahay iyo ta bini'aadamada oo ay u baqaan oo ay joojiyaan xabad joojintii markii hore la sameeyey ay dib ugu soo noqdaan oo ilaaliyaan oo wanaagga iyo nabadda iyo maxaan ku dhahday xaaladda lagu soo celiyay nabad. Ciidamadan xoojinta u ah nabadgelyada gobolka Togdheer ayaa tan iyo xalay ka socday xarunta maamulka gobolka Togdheer, waxaana wafdigan wasiirada ahi ay sheegeen in ay kulamadaasi u yimaadeen gobolka Togdheer. Kulamadaasi lagu xoojinayo nabadda ayaa ahaa qaar ay la yeesheen guud ahaanba xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco, gudiyada xaafadaha, gudiyada reeraha iyo weliba qaar ka mid ah cuqaasha iyo madax dhaqameedka gobolka Togdheer. waxaana guud ahaanba la isku afkartay in si guud looga wada shaqeeyo nabadgelyada gobolka Togdheer. Mustafa Cismaan, magaalo telefishinka qaranka Soomaaliland, magaalada Burco.